munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana loogu magac daray maalinta dhaqanka Jowhar ayaa lagu qabtay xarunta xiriirka shaqaalaha ee magaalada Jowhar. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Jowhar, waxgarad, siyaasiyiin, haween, dhalinyaro, barbaarta gaashaaman, fanaaniin, kooxaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka magaalada Jowhar, waxaana lagu soo bandhigayay dhaqanka Soomaaliyeed sida aqal Soomaaliga iyo dhaqamadii hore. ugu horeen waxaa madasha ka hadlay nabadoon Maxamed Cabdi Carmoley oo ka mid ah nabadoonada magaalada Jowhar iyo gudoomiyaha xaafadda Hanti Wadaag Cusmaan Xuseen Cumar Cusmaan Gaab. ayadoo maanta fadhigan gaaray isugu soo baxeen dhaqankii hidaha oo sharafta lahaay arooskii wacnaay hadii aan la kuloo yahay alaabtii dhaqankii hidaha farshaxankii meesha la soo dhigay waxaa farxad ah aad iyo aad intii soo baxday degmada Jowhar ayaa ku amaanay farxad weyn ay hayso waxaa horteeda ka muuqda dad aad iyo aad u qurux badan sharfan ka soo qayb galay munaasabada maalinta dhaqanka Soomaaliyeed ee lagu qabanayo magaalada nabadgelyada hooyada nabadgelyada magaalada Jowhar. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Jowhar Abshir Cadow Hiraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Jowhar Xasan Barrow Bocor ayaa dhankooda ka hadlay waxa ayna soo dhaweeyeen maalinta dhaqanka Jowhar iyo sida dadka reer Jowhar ay u soo bandhigeen dhaqankooda. maanta maalin weyn waa maalin wax laga dareero dhaqanka Soomaaliyeed waa dhaqan soo jiray in la xuso waa u baahan yahay marka maanta waxaan leenahay oo ay dhahay dhaqanka oo aqalka isku jiro oo qalabka wax lagu hayo ku jiraan aad iyo aad ay maadsan yihiin soo dhawaada leenahay waqtiga ayaa cariiraya waxaan leeyahay hambalyo waan idin soo dhaweynaynaa annaga haddaan nahay degmada reer Jowhar haddaan nahay waxaan caan ku nahay dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed sidaas darteed waxaan leenahay soo dhawaada annaga waxaan u helanahay inaan dhaqankeena iyo hidaheena dib u soo noolayno waxaan ku ballanay reer Jowhar inay had iyo jeer garbaha isqabsadaan oo ay ahaadaan dad midaysan. bilihii u dambeeyay ayaa magaalada Jowhar lagu qabanayay munaasabado dib loogu soo nooleynayo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya, waxaana soo dhaweeyay guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Jowhar dib u soo nooleynta dhaqanka Soomaaliyeed. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.